bal sawirkan fiiriya waxaad isleedahay waa hotel 5 star ah waxaase ku leeyahay maaha 5 star ee waa xabsi ku yaala dalka Norway waxa lagu sheegaa in uu yahay xabsiga ugu raaxada badan adduunka bal ka waran qof dambi dil ah geystay kadibna la geenayo xabsi sidan oo kale ah waa xabsi leh adeegyo xitaa aanay lahayn hotel badan dambiilo walba ama maxbuus walba qolkiisa waxa uu u leeyahay kushiin dhameystiran dhalo weyn oo TV ah fadhi kaale iska arag ah xitaa maxbuus walba suuli u gaar ah ayuu leeyahay yacni waxaan dhihi karnaa waa hotel caadi ah waxaas ka sii daran arrinkan in maxbuus walba uu furihiisa isaga gacantiisa ku haysto oo qolkiisa iyo kushiinkiisa iyo wixiisa uu isaga maamulanayo xeerka kaliya ay xabsigan ka jira ayaa ah in maxbuus walba ay waajib tahay in habeenkii oo dhan uu ku jiro qolkiisa intaas waxaan ka ahayn wuxuu rabayo sameyn karaa wuxuu rabayo ka shaqeyn karaa si dabiici ah 5 ilaa 9 saacadood oo shaqeysan karaa halka fasaxa asbuuclaha ahna ay soo booqan karaan eheladooda waqtina ay la qaadan karaan waxay yiraahdaan hadafka xabsiga ayaa ah in dadka dambiyada gala loo bedelo dad fiican maxay ila tahay idinka in la sameeyo xabsi sidan oo kale ah ma yareynayda tirada dambiilayaasha mise way kordhinayda fikirka commentiga noogu reeb tani kulanti dambo assalamu calaykum